Stanislav Petrov wuxuu ahaa korneyl ka tirsan ciidamadii cirka ee Midowgii Soviet. Shaqadiisuna waxay ahayd ilaalinta sistamka raadarada waddankiisa, kuwaas oo sheegaya gantaal walba oo la isku dayo in laga soo rido Mareykanka. Habeenada ka mid ah ayuu shiftiga habeen soo jeedka ku qornaa. Waa berigii habeenkaas, taariikhduna ku beegnayd 26 Sebtembar 1983. ayaa kombiyuutarradii raadarada ku xirnaa aad u dhawaaqeen, iyagoo sheegay in 5 gantaal oo ah kuwa qaadada isaga kala goosha madaxyo nuclearna ay ku xiran yihiin Mareykanku ku soo riday Midowga Soviet. Wuxuu yiri Petrov, si aad ah ayuu dhawaaqeen raadaradu. Dhowr sikin ayaan fariistay, kursiga ayaan dib isugu tiiriyay, kombiyuutarkii ayaan si aad ah oo degan u eega. Laakiin shaashada kombiyuutarku guduud ayay isu bedeshay. waxaana ku qornaa ereyga waa la soo riday, yacni gantaaladii waa la soo tuuray oo waa la soo riday. Saaxiibayaal, waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanayaa in haddii aad kanaalkayga hore u taxnaydeen aad like ii saartaan, haddii aad hadda ku cusub tihiinna in aad like iyo subscribe ii saartaan si ay idin soo gaaraan barnaamijyada xiisaha leh ee aan halkan ku wada wadaagno. Xilliyadaas waa 1983. dagaalkii qabowba ee u dhexeeyay Midowga Soviet iyo Mareykanka iyo xulafadiisii meel kharaar ayuu marayay, oo 25 bari ka hor maalinkaas ayaa Midowga Soviet waxay soo rideen diyaarad ay lahayd Kuuriyada Koonfureed, taas oo wax yar soo gashay hawadii Midowga Soviet. Diyaaraddaas waxaa ku dhintay dhammaan rakaabkii saarnaa oo ahaa 269 qof. waxaa ku jiray dadkii diyaaradda saarnaa ee ku dhintay xubin ka tirsan Koongareeska Mareykanka. Xaaladdu waxay qarka u saarnayd in labadii quwadood ee markaas adduunyada ugu waaweynaa ay dagaal ku dhawaaqaan. Aan ku noqonno xaruntii raadarada. Petrov wuxuu ku qasbanaa in uu falcelin degdeg ah sameeyo, sababtoo ah gantaalada laga soo tuuray Mareykanka muddo 20 daqiiqo oo kaliya ah ayay ku soo gaarayaan dhulweynihii Midowga Soviet. Wuxuu yiri Petrov, ma jirto qaacido ama sharci ku ogolaanaya inaad muddo badan sii fakarto adoona wax tallaabo ah qaadin. Ilbiriqsi walba oo ku dhaafa adoona wax go'aan qaadan waxay culays ku noqon doontaa militariga iyo hogaamiyaasha Midowga Soviet. Isla markiiba telefoonka intaan gacanta ku habhaabtay ayaan damcay inaan toos ula xiriiro taliyihii noogu sarreeyay. degdega igu jiray waxaa moodaa sida inaan ku fadhiyo digsi dabka saaran. Cabbaar haddaan istejiyay oo u fiirsaday waxba kama soo cusboonaan digniintii raadarku noo soo diray. Takhasuska iyo tababarka Petrov wuxuu ahaa in uu saadaaliyo dhammaan weerarada nuclearka ah ee ka imaan kara dhanka Mareykanka. Yaab ay igu noqotay buu yiri digniintan ay raadaradeenu noo soo direen, taasoo ah in Mareykanku nagu soo rideen 5 gantaal oo kaliya. Macquul maahan in Mareykanku 5 gantaal oo kaliya Midowga Soviet ku soo weeraraan. Haddii Ameerikaanku ay u qorshaysneed oo ay dhab ka tahay in ayna soo weeraraan, si ballaaran ayay noo soo hujuumi lahaayeen. Daqiiqado walwal iyo walbahaar ah kadib, Petrov wuxuu go'aansaday inuusan la xiriirin oo uusan warkan gaarsiin taliyihiisii. Wuxuu go'aansaday inuu si degan u hubiyo kombiyuutarkii raadarka ee digniintan bixiyay. Nasiib wanaag, malihii Petrov ayaa rumoobay. Raadarka oo ahaa mid si degdeg ah loo xiray maadaama xaalad dagaal lagu jiray ma uusan ahayn mid si 100% ah digniintiisa la isugu halayn karo. Marka raadarkan fallaaraha qorraxda ayaa si dadban ugu soo dhacay. Deedna isla markiiba wuxuu u turjumay fallaarihii qorraxda ee ku soo dhacay gantaalo lagu soo tuuray dhulweynihii Midowga Soviet. Korneyl Petrov wuxuu qaatay go'aan konton ah. Isaga laftirkiisa ayaa wuxuu ku jiray xaalad jahwareer ah oo aad u daran. Haddii uu isla markiiba la xiriiri lahaa taliyihii guud ee ciidamadii Midowga Soviet, si degdeg ah ayuu u amri lahaa in weerar nuclear ah oo rogaal celis ah la qaado. Deedna adduunyada oo dhami waa isla guban lahayd. Haddii aan dib ugu noqonno markii ay Midowga Soviet soo rideen diyaaradii Koonfurta Kuuriya, sida aan hore u soo sheegnay, waxaa rakaabkii dhintay ka mid ahaa xubin ka tirsan Koongareeska Mareykanka. Mareykanku arrintaas aad buu uga carooday, waxayna diideen in xaaladda la dejiyo. Madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas, Ronald Reagan, wuxuu ku tilmaamay Midowga Soviet in ay yihiin imbaradoriyad sharwadeen ah. Intaas wixii ka dambeeyay, Midowga Soviet waxa ay noqdeen keebla yuurar,
oo waxay aad uga baqayeen weeraro uga imaada dhanka Mareykanka. Dagaalkii qaboobaa haddana mar kale ayuu cirka isku sii shareera. November isla sanadkii 1983 kadib markii gaashaanbuurtii NATO ay sameeyeen dhoolatus aad u weyn oo lagu magacaabay Able Archer 83. Ameerikaanku waxay qaaradda Yurub keeneen gantaalo madaxyo nuclear ay ku rakiban yihiin. Madaxdii Midowga Soviet waxay toos u aamineen in Ameerikaanku ay isku soo qarinayaan dhoolatuskan oo ay damacsan yihiin weerar toos ah. Midowga Soviet waxay si weyn heegan u geliyeen ciidamadoodii fadhiyay Poland iyo barigii Jarmalka. Waa ayo Cornel Petrov, ninkii adduunyada ka badbaadiyay khatartaas weyn ee aan soo sheegnay. Khatar weyn ayuu adduunyada ka badbaadiyay. bal ka waran hadduusan waxba hubsan oo isla markiiba uu la xiriiri lahaa taliyihii guud ee ciidamadii Midowga Soviet. Dabcan halkaas falcelin argagax leh ayaa ka dhici lahayd. halkaas waxaa fooda isku dari lahaa labadii quwadood ee adduunyada ugu weynaa markaas. toos ayaana loo geli lahaa dagaalkii saddexaad ee adduunka, wuxuuna noqon lahaa mid ka daran oo ka khasaaro badan dagaalkii koowaad ee adduunka iyo kii labaad. sababtoo ah markaan waxaa la isku adeegsan lahaa nuclear. Cornel Petrov wuxuu ku dhashay Ruushka sanadkii 1939. aabihiis wuxuu ahaa duuliyaashii ka qayb qaatay dagaalkii labaad ee adduunka. hooyadiisna waxay ahayd kalkaaliso. markii uu dhammaystay waxbarashadiisii ciidamada cirka, wuxuu noqday nin aad u firfircoon, taasoo u sahashay in loo dhiibo maamulkii qaybta raadarada. Cornel Petrov wuxuu shaqadii dawladda ka fariistay sanadkii 1984. intaa wixii ka dambeeyay wuxuu u shaqayn jiray shirkado khaas ah. laakiin sanadkii 1997 ayuu gabi ahaanba faraha ka qaaday dhammaan shaqooyinka oo dhan, kadib markii xaaskiisu ku dhacay xanuunka kansarka, kaasoo ay u dhiman doonto mar dambe. qisadan cajiibka ah ee Cornel Petrov waxaa la ogaaday sanado kadib. mar dambe oo ku beegan sanadkii 1998 ayaa buuggiisa xusuus qorka ahaa waxaa ku sheegay qisadan jenaraal hore oo ka tirsanaa ciidamadii difaaca gantaalaha ee Midowgii Soviet. buuggaas xusuus qorka ah kadib, magacii Cornel Petrov aad ayuu u soo shaabaxa. sanadkii 2006 wuxuu u safray Cornel Petrov Mareykanka si uu soo gudoomo abaalmarino ay siinayeen ururo caalami ah oo ka shaqeeya nabadda. haddana sanadkii 2014 ayaa waxaa laga sameeyay qisadan cajiibka ah film documentary ah oo la yiraahdo The Man Who Saved the World, ninkii adduunyada badbaadiyay. ugu dambeyn, Cornel Petrov wuxuu dhintay sanadkii 2017 isagoo jira 77 sano. wuxuuna ku dhintay guri uu ku noolaa kaligiis oo ku yiilay magaalada Moscow ee caasimadda waddanka Ruushka. su'aal yar oo kooban: ka waran haddii Midowga Soviet ay isla markiiba falcelin sameyn lahaayeen oo aysan waxba hubsadeen oo ay gantaalo nuclear ah ku ridi lahaayeen Mareykanka, sidee adduunyadu maanta u ekaan lahayd? fadlan aragtidaada igula wadaag qaybta commentiga. saaxiibayaal, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad si xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanayaa in haddii aad kanaalkayga hore ugu taxanaydeen aad like ii saartaan, haddii aad hadda ku cusub tihiinna in aad like iyo subscribe ii saartaan si ay idin soo gaaraan barnaamijyada xiisaha leh ee aan halkan ku wada wadaagno. sidoo kale saaxiibayaal, waxaa jira page aan Facebook ku leenahay oo isla magaca kanaalkan wata, waa Yamyam Balase, kaas oo aan si maalinle ugu soo gudbino dhacdooyinka yaabka leh ee dunida daafaheeda ay ka qorto saxaafadda adduunka. waxaan ka codsanayaa page-kaasna inaad like ii saartaan. waa mahadsantihiin. guuleysta saaxiibayaal. waa noo xalqad kale oo xiiso leh iyo nooli kulante.